kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan ay si kastoo noo daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka TV-ga Ruushag Cabdiraxmaan Balaaga idiin waramaya qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah fiqi oo weerar culus ku qaaday General Odowa, loolanka Fahad Yaasiin iyo Faarax Sheekh Cabduqaadir oo isku haysta kursiga Hoob 86. xildhibaan David Amis waxaa loo dilay xiriirkiisa Qatar iyo taageerada dowladda federaalka. Jubbaland oo shaacisay xilliga ay qabanayso doorashada aqalka sare. Xeraalyaha guud ee qaranka oo si kulul uga hadlay kalluumeysiga sharci darrada ee ka soconaya xeebaha Soomaaliya. Qodobadaas iyo dhan barnaamijka TV-ga Ruushag aad ku daawan doontaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena share, like, comment si saaxiibo kale ay u gaaraan. hagaaga aan ku bilaabnay sidaad hordhaca barnaamijka aad kula socoteen fiqi oo weerar culus ku qaaday General Odowa. wasiirkii hore amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sidoo kale mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa weerar ku qaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Odowa. General Odowa Yuusuf Raage oo ku sugan caasimadda Galmudug. Axmed Fiqi ayaa ku eedeeyay Odowa in uu kol hore hogaaminayay dagaalkii muddo kororsi qasabka ahaa ee Muqdisho oo maanta dagaal u aaday maamulka Galmudug gaar ahaan Guriceel oo isku hayaan maamulka Qoorqoor iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. waxa uu tilmaamay taliyaha mid aan fahamsaneyn waajibaadka xilka loo dhiibay, isagoo sheegay in uu qaadayo mas'uuliyadda talaabooyinka guracan ay wadaan sidoo hadalka u dhigay. dhabarka u ridanaya oo lagula xisaabtami doona mas'uuliyadda ficilka guracan ka dhalatay iyadoo ay muuqato inuusan fahamsaneyn waajibaadka xilka loo igmaday, ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Fiqi dhammaan waxa uu soo joojiyay furmihii dagaalka ee ciidamada xoogga dalka kula jireen argagixisada. uma maleynayo in taliye ka mid ah kuwaas soo maray xoogga dalka Soomaaliyeed inuu yeelan lahaa waxa Odowa yeelayo iyo sida loo isticmaalayo waa nasiib darrada ciidamada ku habsatay, ayuu yiri. Axmed Fiqi ayaa xilka wasiirka amniga gudaha iscasilay kadib markii la dhageysan waayay in laga baaqsado dagaal isla markaana ay isku fahmi waayeen madaxweyne Qoorqoor in xilligani aan lala dagaalami karin Ahlu Sunna wal Jamaaca. saraakiil uu ka mid yahay Odowa ayaa madaxweynaha maamulka Galmudug la wada qorsho dagaal looga saarayo Guriceel ciidamada ay wataan Ahlu Sunna oo kol hore looga adkaaday maamulkaasi. habeenkii ugu horeeyay barnaamijka TV-ga Ruushag ayaan ku guda jirnay loolanka Fahad Yaasiin iyo Faarax Sheekh Cabduqaadir ee kursiga Hoob 86 ayaa isku haysta. waxaa bilowday loolanka kursiga golaha shacabka ee la filayo inuu isku soo taago taliyihii hore ee NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin, kaasoo sumadiisa ay tahay Hoob 86. kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir oo isku beel yihiin Fahad Yaasiin. Faarax Cabduqaadir ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in kursigaasi uu heli doono qof kalsoonida ka hela kursigaasi isla markaana ay guusha go'aamin doonaan ergada codeynaysa. kursiga beel ayaa iska leh qof kasta oo beesha ka tirsan waa la yaqaana xaq ayuu u leeyahay inuu ku tartamo cid sharciga ka hor istaagi karta. annaga aan ognahay ma jirto, waxay ku xiran tahay beeshaasi codkeeda, ayuu yiri. sidoo kale waxaa jira musharaxiin kale u hungul taagaysa kursigaasi, hase yeeshee isaga iyo Fahad Yaasiin waa labada nin ilaa hadda ugu miisaanka culus loolanka ugu xoogan ee dhexmarayo. ninka odayga ah Fahad Yaasiin ee aad sheegayso 2016 ma tartameynin. anigu walwal aan ka qabo ma jirto, waliba anu waxaan aaminsanahay dadka qaba in xor u yihiin waa in la aqbalo cidda ku guuleysata kursigaasi. Fahad Yaasiin oo horey u ahaan jiray taliyihii NISA ayaa la taliye u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna rabaa inuu ku soo baxo mudanayaasha baarlamaanka cusub ee dalka. daawadayaal barnaamijka TV-ga Ruushag ayaa dahuli la socotaan. xildhibaan David Amis waxaa loo dilay xiriirka Qatar iyo taageerada dowladda federaalka. booliska UK ayaa baaraya in dilka xildhibaan David Amis uu xiriir la leeyahay xiriirka xildhibaano kala dhaxeeyay dowladda Qatar, sida uu qoray wargeyska The Time. David Amis oo ka tirsan xisbiga Conservative ayaa waxaa lagu dilay mindi Jimcihii isagoo ku sugnaa
deegaanka Leon-C waxaana dilka loo qabtay Cali Xarbi Cali Kulane. Booliska UK ayaa sheegay in ilaa hadda dilka ula macaamilayaan mid argagixiso balse ay eegayaan suurtagalnimada in loo dilay xiriirka dowladda Qatar darteeda. Ilo wareediyo amni ayaa The Time u sheegay arrinta Qatar waxay ahayd tii ugu dambeysay xildhibaan uu soo weedgareeyo booliska way eegayaan. Dhinaca kale wargeyska Daily Mail ayaa qoray in Cali aabihii oo lagu magacaabo Xarbi Cali Kulane oo aad u dhaliilo dowladda Qatar oo taageero siisa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warbixinta Daily Mail ayaa lagu sheegay in qoraalka uu Xarbi Cali Kulane soo dhigay Twitter-ka 5 Oktoobar uu faragelinta Qatar ee Soomaaliya ugu yeeray mid aan wanaagsaneyn oo ay tahay Twitter ayaa Xarbi Cali Kulane ku yiri tan iyo 7 Febraayo waxaa nasiib daro aragnay ku lug lahaanshaha aan caafimaadka lahayn ee Qatar ee saaxadda siyaasadda Soomaaliya. Waxaa la joogaa waqtigii xiriirkani xun ayaan laga fiirsanin la baabi'in lahaa lana yareyn lahaa saameyntiisa. Ilo wareediyo amni ayaa u sheegay Daily Mail inaysan wax muujinaynin Xarbi Cali Kulane uu yahay xagjir. Xarbi ayaa aad ugu argagaxay dilka. Amisa ayaa madax ka ahaa guddi ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo ABBG oo taageera Qatar kana shaqeeya wanaajinta xiriirka ka dhexeeya dalalkan ku yaala gacanka iyo UK. Amis ayaa 9 ilaa 10 Oktoobar booqday halkaasi oo kula kulmay Amiir Tamam bin Hamad Al Thani. Axmed Madoobe ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee ku haray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta 4 kursi ee aqalka sare ee u harsan maamulkaasi. Jubbaland ayaa ahayd maamulkii ugu horeeyay ee qabta doorashada aqalka sare hase yeeshee in ka badan hal bil ayay sabab aan la aqoonin u haysteen doorashada kuraasta kale. Liiskan uu soo saaray Axmed Madoobe ayaa 2 ka mid ah kuraasta waxaa si gaar ah loogu xiray haween halka midka kalena ay ku tartamayeen haween iyo rag. Midna rag kaliya ay ku tartamayeen. 4 kursi iyo sida loogu tartamayo ayaa kala ah kursiga 5aad Leila Nuux Maax iyo Xareedo Maxamed Sheekha, kursiga 6aad Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Faarax Macalin Cabdi, kursiga 7aad Maryan Faarax Kadiye iyo Zamzam Maxamed Bishaar, kursiga 8aad Xasan Daahir Yarow iyo Cali Maxamed Cali. Haddii doorashada aqalka sare ay ka soo dhamaato Jubbaland waxaa haray oo kaliya 2 kursi oo ku harsan maamulka Galmudug uu hogaaminayo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Beesha caalamka oo shalay wada hadal la yeelatay Qoorqoor ayaa ugu digtay inuu dagaal ku qaado ahlu sunna taasi oo qiil uga dhigan karo inuu doorashada dib u sii dhigo. Fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay share like comment si saaxiibo kale ay u gaaraan. Kooxda TPLF ayaa war ka soo saartay duqeyn ay diyaaradaha Itoobiya ee gobolka Tigray ka geysteen. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa sii xoojiyay weerarada iyo gulufka ka dhanka Tigray-ga oo ay gaarsiinayso gudaha gobolka iyo qeybaha ay ku sugan yihiin jabhadda. Saacadihii la soo dhaafay ciidamada federaalka Itoobiya ayaa weerar dhanka cirka waxay ka fuliyeen magaalada caasimadda waa gobolka Tigray ee Mekelle. Sida ay baahiyeen warbaahinta afka Tigray-ga ku hadasha, weerarka dhanka cirka ayaa waxaa khasaaro u geysteen dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada duqeynta laga fuliyay. Maleeshiyaadka TPLF ayaa awoodi waayay inay iska caabiyaan weerarada ay geysanayaan ciidamada federaalka Itoobiya kadib markii jihooyin kala duwan ay kaga yimaadeen diyaaradaha dagaalka. In ka badan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weerarada lagu qaaday xaafadaha Mekelle waxaana dhaawacyo lagu sheegay inay gaarayaan 10. Dhaqaatiirta isbitaalka weyn ee magaalada oo la geeyay dadka ku dhaawacmay duqeymaha ayaa sheegay in magaalada laga geystay xadgudubyo ka baxsan xuquuqda aadanaha. TPLF ayaa dhankeeda shaacisay in weerarada ciidamada Itoobiya ay soo qaadeen inaysan jirin cid ciidamadooda ka tirsan oo waxyeelo ay ka soo gaadhay. Gobolka ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay
24 saac la soo dhaafay xaaladda kacsanaana kadib markii ciidamada Itoobiya ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah TPLF. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada dagaalka uu ka dhaxeeyo ay sameeyaan heshiis xabad joojina lana ilaaliyo xuquuqda aadanaha. Gudaha khiyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka TV-ga Runsheega oo idila socodsiinayay saaxiibkina Cabdiraxmaan Balaaga. Tantan barnaamijka lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo